إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. dhammaan ummadda muslimiinta caalamka, ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug waxaan leenahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad dhammaanteed leh, bishii ramadaan ee barakeysneed nagu soo dhameeyey si nabadgelyo ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa wii acmaashoodii la aqbalay alla inuu nagu daro oo ilaahay acmaashii naga aqbalo. runtii mahad weyn baan ilaahay subxaanahu wa tacaala u celinaynaa, iyadoo la og yahay in cadow badan oo cibaadada la dirsan, ummadda muslimiinta la dirsan, dhibaatada ku hayaa uu jiro. allihii naga nabadgeliyey si nabadana cibaadadii bishii ramadaan nagu soo dhameeyey. intaas kadib maalintaa weyn, munaasabadaas weyn oo ciidul fitrigaan isugu hambalyeynaynaa, leenahay dhammaan reer Galmudug nabad, caafimaad iyo barwaaqo ku ciida. dadka reer Galmudug meel ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa amnigeenna iyo wadajirkeenna aan ilaashanno. cadowgu argagixisada kaliya maaha, kuwa dadka wadajirkoodii midnimadooda la dirirsan oo kala qaybinaya oo kala geynaya, iimaanka allaha geliyaan leenna. kuwa dadka akhlaaqdooda iyo diintooda iyo wanaagooda la dirirsan oo u baahan iyadana in la toosiyo wixii toosaya, wixii aan toosayna nidaamka iyo dowladnimada laysaga qabto. cadowgu waa fara badan yahay. waxaan leenahay insha allah meel la joogaba midnimo, wadajir iyo tawfiiq iyo talo ha la qaato. barwaaqaa la joogaa, midnimo iyo wanaag baa la haystaa, nabadgelyaa la haystaa. inta un ka soo harta meelaha ay dhibayaan argagixisadu ay dhibayso oo ay dadka ku dhibayaan, iyadoo runtii aan aad ugu mahad celinayo hay-adaha amniga dadaalka iyo feejignaanta ay bixiyeen, oo runtii ay aad iyo aad weliba khaasatan ay bishii ramadaan aad iyo aad u muujiyeen taxadar badan. waxaan dadka u rajaynaynaa bishaa barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala si nabad nagu soo dhameeyey fadligeeda iyo cibaadadii la soo maray in gacmaha la isqabsado. wax yar yar hadday jireen, dad meelo ama qabiil isugu dhaca ama waxyaabo kale ayaa mararka qaar yimaada. waxaasoo dhan inaan cid walba qofkii ku baraarugsan uu ku baraarugo, kii aan ku baraarugsanayna uga nasteexayno oo gacanta la iska mariyo. taasaan dardaarmaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ciiddeeda inuu nagu gaarsiiyo nabadgelyo, caafimaad iyo horumar.